السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان انت channelka ku xiran asxaabta soo dhawaada waxa inoo bilaaban doona xisaab fasalka 8 insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa cutubka koowaad ee ah urur waa maxay urur waxaan sharaxi doonaa cutubka koowaad urur inta af Soomaaliga hore ee inoo qoran leeyahay casharadii hore waxa aan ku soo baranay in urur uu yahay koox walxo ah cutubkan waxa aan ku baran doonaa urur guud iyo urur duleed iyo in la adeegsado jaantuska fin si loo muujiyo xiriirka ka dhexeeya ururada cutubkan waxaan ku qaadan doonaa labadan cashir ee halkan idinka kaga muuqda casharka koowaad ee ah urur guud iyo urur duleed ayaan ku qaadan doonaa cashar koowaad casharka labaadna waxaan ku qaadan doonaa hababka loo qoro ururada haddii aan guda galno casharkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa urur guud waa maxay urur guud qeexitaanka ayaan ku hormari doonaa urur guud waa urur soo koobaya dhammaan ku tiirsanayaasha ururada waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xaraf weyn ee ga dhammaan ururada kale waa hormo ururo ururka guud aan ku celiyo urur guud waa ururka soo koobaya dhammaan ku tiirsanayaasha ururada waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xarafka weyn ee ga dhammaan ururada kale waa hormo urur waa hormo ururo ururka guud aan dhihi doonaa sidoo kale halkan waxa inooga qoran urur guud ba aan qaadan doona caawa waa maxay xiriirka ka dhexeeya ururadan ururka ba waxa inooga qoran jubbada hoose waqooyi galbeed hiiraan baay bari taana waxa inooga qoran gedo shabeellaha hoose togdheer nugaal awdal jubbada dhexe galgaduud sool ururka jaana waxa inooga qoran shabeellaha dhexe sanaag mudug bakool banaadir xana waxa inooga qoran baay togdheer bakool galgaduud jubbada hoose gedo waqooyi galbeed sool banaadir hiiraan nugaal shabeellaha hoose awdal bari jubbada dhexe sanaag mudug shabeellaha dhexe halkan waa goboladii ururka koowaad waxa inoogu jira 5 gobol waxaan hor usoo sheegnay ururka guud waa ururka soo koobaya dhammaan ku tiirsanayaasha ururada halkan ururka soo koobaya waxaan dhihi doonaa urur guud halkan hoose waxa inooga qoran haddii aynu u fiirsano ururada sare waxaa inoo muuqanaya in ku tiirsanayaasha ururada ba ta iyo ja ay dhammaan ku wada jiraan ururka xa haddaba ururka sida xa oo kale ah ayaa lagu magacaabaa urur guud haddaba tusaalaha koowaad waxa aan sawirku muujinayaa ururadan soo socda ururka ba iyo ururka ta lagu sii ga-daana waxa dhahanay waxaa loo soo gaabshaa urur guud ururka ba waxa uu la mid yahay 1 2 5 6 1 2 5 iyo 6 uu la mid yahay ururka tana waxa inoogu jira 3 7 9 iyo urur guudna ga-dan urur guuda loo soo gaabshaa waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 9 saadarteed sawirkan wuxuu inoo muujinayaa jaantuska fin sawirkan ga-dan urur guud waaye waxaa soo qaadata ururka ba sawirkaana sawiranaya ururka ba intuu ku tirsan koo yahay 1 2 5 6 halkan waxaa noogu jira 1
labo shan lix. ururka ba ku tiirsanayaashiisa halkaas ayaa lagu qoraa. ururka ta'na wuxuu ka kooban yahay saddex urur, saddex ku tiirsane ee ah 3 7 9. halkaas loo qoraa. tusaalahan asna waa tusaalaha labaad. haddii ururka guud lala jeedaa ay la mid tahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ururka a uu la mid yahay 1 2 5 6 iyo ururka ba'na uu la mid yahay 3 iyo 9. waxa aan sawirayaa jaantuska fin si aan u matalo ururadan markaa matalaysid waxaad ku sawiri kartaa jaantuska fin. jawaab halkan ururkii guud soo qaadanay ga waaye xariiqan jaantuska fin qaabkaas loo muujiyaa. waxaa dhaanay ururka ba halkan qalada ka yara jiro oo ururka waxa uu la mid yahay 1 2 5 6. halkan meesha ay qoran tahay ba waxaa laga rabaa ururka a. halkan meesha ay ta ku qoran tahayna waxaa la jeedaa ururka ba. oo halkan waxaa laga rabaa a, halkaasna ba, ama halkaa inaad ka bedesho. waxaa dhaynaa marka 1 iyo 2 iyo 5 iyo 6 aa noogu qoran. 1 2 5 6. ururka baana waxaa noo qoran 3 iyo 9. halkaasaa ku qorane. waxaa kaloo jiro ku tiirsanayaal kale ee ku jira ururka guud oo aan ku jirin ururadan la tilmaamayo sida 4 iyo 7. 4 iyo 7 waxay ku noqonayaan urur duleed, waxaana lagu qoraa halkaas. 4 halkaas ku qor, 7 halkaas ku qor kartaa. haddaba sabuurada buuggaana tusaalooyin tiro badan ma bixinayo. haddii aan soo qaadano 2 tusaale kala dheer haddii aan ku daro, waxaa dhahaynaa ururka haddii uu la mid yahay a i ururka guudna uu yahay a i o u. ku muuji jaantuska fin. waxaa ku muujinaynaa jaantuska fin ayaan ku muujinaynaa jaantuska fin. halkan kuwaan waxaa loo yaqaanaa ku tiirsanayaasha ururka a loo aqriyaa. ku tiirsanayaasha ururka xubintaana waa ku tiirsane dhammaan, laakiin a i waxay noqonayaan ku tiirsanayaal. kan waa ku tiirsanaha ururka a, kanna waa ku tiirsanaha ururka a, ina waa ku tiirsanaha ururka a, laakiin saddexdoodu waxay noqonayaan ku tiirsanayaasha ururka a. halka ururka guudna uu yahay shaqalada af soomaaliga ee ah a i o u. waxaan hakad waaye way kala xirayaan. halkan ku tiirsanayaasha waa inay noqdaan xarfo yaryar, small letters waa inay noqdaan. xarfo yaryar waa inay noqdaan.
ku tiirsanayaasha dhammaantood, laakiin sadka waa inuu noqdaa capital letter. ururka waa inaa u qortaa xaraf weyn. si aan u muujiyo marka urur guud, sawirkaa soo qaadanaynaa. sawirkan wuxuu noo matalayaa urur guud. jaantuska fiina ku muujinaynaa, gaadii halkaas ugu qoraynaa. halkan waxaa dhahaynaa marka ururka e, halkaasna waxaa ugu qorayaa ururka e. This is ururka e. a e idan halkaana ku dhex qoraynaa a e i. halkaan marka a halkan way ku jirtaa, e halkan way ku jirtaa, halkan way ku jirtaa, i halkan way ku jirtaa, halkan way ku jirtaa. waxaa soo haray o iyo u. o iyo u halkaana la qora, iyaguna waxay noo noqonayaan urur duleed ay noo noqonayaan. markaan gaarnayaan qaadanaynaa tusaalaha labaad. haddii aynu soo qaadano tusaalaha labaad, haddii aan soo qaadano ururka e haddii uu la mid yahay kow labo, ururka bina uu la mid yahay 3 4 5, ururka guudna uu la mid yahay 1 2 3 4 5. halkan waxaan leenahay ku muuji jaantuska fin. waxaa ku muujinaynaa hadda waxaa ku muujinaynaa jaantuska finan ku muujinaynaa. jaantuska fin markaan ku muujinayo, waxaa leenahay markaan ku muujinayno halkan sadka ururka waa inuu noqdaa, ururka e markaa dhahayo xaraf weyn waa inuu noqdaa. gaadana waxaa lasoo gaabshaa urur guud. waxaa dhahana ururka e wuxuu ka kooban yahay ku tiirsanayaal ah 2 ee kala ah 1 iyo 2. ururka bina xaraf weyn ururka inaa usoo gaabiso markasta. ururka bina wuxuu kooban yahay 3 iyo 4 iyo 5. urur guudna waa lagu siiyo 1 2 3 4 5 lagu siiyo. haddaba jaantuska fin markaan ku muujinayno, sawirkaana soo qaadanaynaa jaantuska fin. markaas waxaa u qoraynaa urur guud. halkan waxaa dhahanaynaa ururka e ayna ku muuji raba. halkaas ururka e muxuu kooban yahay 1 iyo 2. wuxuu kooban yahay 2 ku tiirsan. qaabkaasa u muujinaya. halkan waxaa u qornaa ururka b. ururka b iyadan sidoo kale waxaa dhahaynaa 1 2 not 1 oo ururka b waxay ka bilaabanayaan 3. halkan waxaa dhahaynaa 3 ay nooga bilaabanayaan ururka b. sad b waxay ka bilaabanayaan 3 4 iyo 5. 3 4 5. haddii aan soo dul marno cashirka, marka waxaan soo sharaxnay waxa loo yaqaano urur guud. waxaynu dhahnay urur guud waa urur soo koobaya
dhammaan ku tiirsanayaasha ururada waxaana loo qoraa ama loo asteeyaa xarafka weyn ee ga. dhammaan ururada kale waa hormo ururo ururka guud ay noqonayaan. sidoo kale waxaan sharaxnay tusaalooyinkii kan koowaad iyo kan labaad oo buuggeena qorayaa. laba kalena aniga kusoo daray. tusaalaha koowaad waxaa noo qoran haddii waxa aan sawirku muujinayaa ururada soo socda. sawirku muujiya lagu dhaha jaantuska fin. ururka ba iyo ururka ta alusi. ururka ba wuxuu kooban yahay 4 ku tiirsane, kuwaana waxaa loo yaqaanaa ku tiirsanayaal. xubintan kaligeedna waa ku tiirsana. 1 kan waa ku tiirsanaa ururka ba, 2 waa ku tiirsanaa ururka ba, 5 waa ku tiirsanaa ururka ba, 6 waa ku tiirsanaa ururka ba. ururka taana wuxuu kooban yahay 3 ku tiirsane. ku tiirsanayaal aa loo yaqaana 3dan urur. labadan waxaa loo yaqaan dhaanay hormo ururo, halka ururka guudna ga loo soo gasho dhaanay xaraf weyn ee ga. saa darteed urur guud jaantuskan fiina soo qaadane. ururka ba wuxuu kooban yahay 1 iyo 2 iyo 5 iyo 6 waa gelina. ururka taana wuxuu kooban yahay 3 iyo 7 iyo 9. wax halkaa kasoo haro urur guud yani miyaa jira? maya. saa darteed kaas waa qaabka. tusaalaha labaad waxaa dhahan haddii ururka ga ururka guud hadduu la mid yahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 9. ururka halkan waxaa dhahanay a iyo b aanoo kala qoran. sawirka halkan waa inaad ka dhigtaa a, halkaana waa inaad ku qortaa b. a iyo ba ku kala qoran. halkan meesha a ee ku qoranta yani waxaa laga rabaa b, halkaasna waxaa laga rabaa halkan waxaa laga rabaa a aan dhehe, halkaasna waxaa laga rabaa ba. ururka a marka wuxuu kooban yahay 4 ku tiirsane waa 1 iyo 2 iyo 5 iyo 6. qaabkaasaa loo matalaa. ururka ba'na wuxuu ku tiirsan yahay 3 iyo 9. qaabkaasaa loo matalaa. kuwa kaloo soo haray ee ku jira ururka guudna waxaa loo yaqaanaa urur duleed aa loo yaqaan. 4 iyo 7 waxay noo noqon doontaa urur duleed. xisada xigta waxaan ku qaadan doonaa insha allah haddii uu yiraahdo urur duleed waa maxay. urur duleed ayaan ka bilaabi doonaa oo qaybta labaad ee cashirka. asxaabta inta cashirka daawatay wadada Soomaaliyeed geersii ardayda fasalkan 8aadka haddii aad ka faa'iiday. xisada xigtana la soco si aad ula socoto channelka. subscribe saar, share, like iyo comment cashirka ku samee.